call it a program, and some of the challenges include one high level of militarization. caqabadaha aan shirkan uga hadlayno waxaa ka mid ah in ciidamada loo shisheeya ay badaheena si sharci darro ah ku joogaan dalalkeena xubnaha ka ah IGAD-na waxaan u aragnaa inay khatarteeda leedahay ciidamadaasi shisheeye arrinta labaad waa kalluumaysiga sharci darrada ah oo saameyn ku leh badaheena sida badda cas gacanka aadan iyo badda Hindiya dhibaatooyinkaana waa kuwo xiriir leh ugu dambeyntii waa badaheena oo lagu shubayo haraadiga sunta warshadaha iyo wasakhda tani waxay saameyn ku leedahay dadaalka dalalkan ay u marayaan ee ilaalinta kheyraadka badaheena waana muhiimadda shirkeenani IGAD iyo wada tashiga qaran is very important for this task force and the national consultation. ugu horeyn waxaan xoogga saari doonaa arrimaha nabadgelyada waxaan xoogga saari doonaa arrimaha maaragtay dhaqaalaha waxaan xoogga saari doonaa arrimaha qubista sunta ee deegaankayaga iyo badahayaga waxaan xoogga saari doonaa wax walba oo annaga ka Soomaali ahaan na khuseeya si haddii Allah awood leh ogolaado marka ay ururka IGAD soo xooriyaan ay isu keenaan qoraalada ay ka soo sameeyaan dhammaan wadamada ay uga muuqato annagu saameyntii iyo arrimihii danteedu ku jirtay riboodka ugu dambeeyay soo bixi doona arrintan waxay daba socotaa shirkii golaha wasiirada qaraarkii ay ku qaateen in la abuuro task force waxay ugu yeeraan ama dad u taagan inay hawshan isku soo dubaridaan oo aan qayb ka ahayn wasiirkeenuna saxay haddii Allah awood leh ogolaadana waxay noqon doontaa wada shaqeyn u dhaxaysa gobolka oo dhan gobolka IGAD ee looga hadlayo arrimahan lagu gorfaynayo wax kasta oo ku saabsan arrimaha badda cas iyo gacanka cadmeed